Soomaaliya burburtay oo haddana dhisantay oo haddana tallaabsatay oo haddana dheeraysay oo isku dayday inay tartanto oo haddana gaadhay guulo ballaaran oo haddana dib u barteen bulshooyinka caalamku oo haddana waa wakhtigii horumarka iyo geeddi-socodka Soomaaliya hadda waxay qaadaysaa sannadda 2020 heesta marxaba marxaba مرحبا صوماليا قبلك موسى اكو مريميو اكو منستي كقولو عمر وني من نقول لنا يا ميسان عمل ما هي مش لاقى حلي مرحبا مرحبا شعبي مرحبا مرحبا صوماليا مرحبا مرحبا شعبي مرحبا مرحبا Soomaaliya markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxay noqotay mid xaalkeedu aad sahal yahay oo waxay shacabku u kala yaaceen sida cawsha oo kale waxaana halkaasi ka bilaabmay in shacabku u kala gaabaguulaan amaba u jihaystaan wadooyinka ka baxa Soomaaliya iyagoo inta badan ku xarooday wadamada Kenya iyo Ethiopia oo iyagu laftigoodu ay cadaawad ka dhaxaysay balse waxay noqdeen cadawga u jab xerooyin waaweyn ayaa ka samaysmay wadamada Kenya iyo Ethiopia oo waxa isku shubay shacabkii Soomaaliyeed ee ka qaxay wadankooda Ethiopia ka daran oo iyana waxay noqotay wadan qaxoonti ku xaroodeen caddayn uma baahnayn wadamadani hawba sii kala badnaadaan oo Ethiopia ha u badnaatee inay furfurteen qalabkii iyo warshadihii badnaa ee Soomaaliya ay lahayd iyagoo ka faa'iidaystay kanshada soo martay markana aynu isha ku dhufano caalamku siday u arkayeen burburka Soomaaliya iyo xilligaasi. Well, now that relief operations are reaching deeper into the countryside in Somalia, it is clear that the scale of the famine there is even worse than we thought. maxaa ka dambeeyay 30 sano kadib burburkii Soomaaliya weli waa sidee rajadii shacabka Soomaaliya ma yeelan kartaa awooddii ay lahayd 30 sano ka hor Soomaaliya dib ma ula tartami doontaa cadawgeedii jiilkii hore way galbanayaan oo jiil cusub Soomaaliya u soo baxaye waa sidee hamigoodu dhalintaasi waa sidee baahiyihii asaasiga ah ee waddanku amniga laftigiisu maxay xukuumaddu ka qabatay caasimadda Soomaaliya oo ah muraayadda waddanku burburkii kadib maxaa iska beddelay Soomaaliya waxa soo maray oo talada dalka isaga dambeeyay marka laga reebo dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo burburtay 1993 xukuumado badan hadda waxa talada dalka haya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doorasho ku soo baxay taariikhdu markii ay ahayd Febraayo 8, 2017 sideedii bishii Febraayo 2017 ayaa noqday maalin ay wada dabaal degaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo maalinkaasi ay rajadoodu soo noqotay ciidanka ayaa iyaguna laftigoodu dabaal degayay taasi oo ku muujinaysa in mar labaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu marsiyo Soomaaliya dariiqii guusha محمد عبد الله فرماجو متكي ومدوره الله كريم Febraayo 2019 ayuu si degdeg ah madaxweyne Farmaajo u soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kaasi oo noqday isna garabkiisii labaad markii aan arkay dalka inuu u baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray waxa ay caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano la soo dhaafay dawladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida
sharafta leh oo aad iigu magacawday xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waxaana aad ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkayga iyo dalkayga iyo waajibkay saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo Soomaaliya waxay u babacdhigeen waxyaabo badan oo ay aaminsanaayeen bulshadu inay adag tahay waqtigani in dawladdu awooddo muhiimadda waxay siiyeen ciidamada xoogga dalka oo noqday muhiimadda ugu muhiimsan ciidamo badan ayaa dalka dibaddiisa loo diray si loo tayeeyo cududda islamarkaana ay la jaan qaadaan tababarada hadda halka kuwo kalena tababar la mida kuwaasi lagu siiyey gudaha dalka oo kumannaan iyo kumannaan ay ka soo baxeen nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage waxaa markii kuwa si toos ah la isugu xidhay askariga iyo bangiga dhexe oo markii hore kharashaadkoodu meel kale u soo mari jireen bilana ay qadi jireen bilana aanay qaadan jirin mushaharka ay xaqa u lahaayeen waxay dib u soo celiyeen hawadii Soomaaliya oo muddadii ay burburka ahayd laga maamulayay Kenya waxaana maalintaasi si toos ah ula hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duuliyo wada diyaarad ku jira hawada Soomaaliya waana kan September 2017 ayaa dib loo furay xilli habeenimo ah inuu shaqeeyo garoonka Aadan Cadde International Airport oo ugu dambeysay in diyaarad ay ka soo degto ilaa muddo 27 sano ah waxaana xilli habeenimo ka soo degtay diyaaradii ugu horeysay oo ka soo ambabaxday dalka Sacuudi Arabiya magacaygu waa Axmed Maxmuud waaye duuliyaha diyaaraddan hadirtan Juba Airways oo maanta caawa ugu horeysay Muqdisho ka soo degday waanu ku faraxsanahay horta hore in wadankii ayaan sanado badan in diyaarad ka soo degi karin oo caawa ugu horeysay aan soo laabanay oo equipment fiican oo dawladda Soomaaliya hagaajisay aad ugu faraxsanahay qalab fiican runway lights noo loo rakibay ilaa iyo 5000 feet ka soo aragnay ilaa 7 kilomitir wax lagu qiyaaso waan ku faraxsanahay dawladda Soomaaliya noo ku mahadcelinayna garoonka Aadan Cadde International Airport waa really waa international caawa waad arkaysiin wuxuu furan yahay subaxii 6 ilaa iyo habeenkii 10ka inkastoo laga soo degi karo waqti alla waqtiga la rabo laakiin shaqaalaha waxay available yihiin waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airportka ilaa iyo 10ka habeenimo diyaaradda commercialka ay hadda waad arkaysiin inta leeg ay soo degtay ayadoo 200 oo qof wado ay soo degtay haddana way ka duuli doontaa airportka marka musuqmaasuqu waa waxa dib u dhigay bulshada Soomaalida waxayna ahayd arrin adag in xilligan oo Soomaaliya dib u soo uratay musuqmaasuq la tirtiro balse taasi waxa ka dhabeeyay xukuumadda nabad iyo nolol oo ka dhigtay wax aqli gala tan uu soo gaaray inaan helno toolkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay Sheekh Baaruud diinteenu waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qaloocan wax alla wixii diinteenu diidan tahay musuqmaasuqa ma aha kaliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas'uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinaynin
وحقيقة إن أنك أنكرت إنه مال هوسة ولبا وانا ضدوبي وطبعا كوجه هوسة ساليري لكن إلا عديا في عن سي أن مش أن جوجنا نوه عنه نمر كوجه هوسة يانا بقول السجاشن يا أفضل يا دون كجرة وحنا هاي بقول السجاشن يا أفضل وزير كذلك وتجي أو شيء أو دنماركنا ونمبر 1 وانا دل كريستانا أنا وحنا هاي دل مسلمة oo dhaqankii islaamka laga rabay inuu sameeyo oo wax alla wixii xaaraana inaan ka tagno waliba amaanadu kuma jirto oo waxa cad qofka inuu san marin salaad mustaqiim xitaa inuu san marin dacwada xitaa inuu san tagayn hadii lagu leeyahay deena ma aha macnaha qof kaliya maxaan ku raadaa deen kugu leeyahay ma aha waxa deentaan kugu leh qof kasta oo nool iyo qof kasta oo noolaan doona haddaan doonayno dalka inuu kobco haddaan doonayno dalka inuu horumaro haddaan doonayno dalku inuu la tartamo caalamka intiisa kale markaasna waa ku qabsan kartaa ninka mas'uulka ah hadduu ku takrifalo haddii ganacsadihii uu diido lacagtii laaluushku inuu dhiibo haddii gabadhii yaanyada gadaysay ay dhiibto canshuurteeda waa lagu qabsan karaa marka ninkii authority-ga ahaa dowladda ahaa haddii uu wixii maasuqo waa lagu qabsan karaa marka dambiga aakhiro iyo dambiga adduun waa loo simeeyaa cid gaar ah ugu dhici mayso waa xaqiiq dawladdu waxa laga rabaa inay keento xasilooni siyaasadeed inay keento dawladdu waxa laga rabaa inay keento dawlad wanaag xasilooni siyaasadeed macnaheedu waxay tahay dawladdu inay isqabqabsan waxaa dib u soo laabtay dhalinyaro fara badan oo ka mid ah al-shabaab isla markaana ay soo dhaweeyeen shacabka iyo dawladduba ka imaaday شباب دقمية تولو براغو كدي مركان لسو حريري معامل دقمية قرباري قول كجيدو كعد صدينا إن لي عافية أنا كان نغضا كانت تنازل برامجكي هي شقوين كنو دحي شقوين دينا حيث عيدما فسانتا انكتر سنة كدي مركي أن مطلعنا برامج كسو تنازلين وحنا لسو حريري معامل دقمية قرباري قول كجيدو si wacan oo liisoo dhawey si sharaf badan ammaankii caasimaduna waxa uu noqday mid soo kabanaya oo muqdisho caddi hadda waxaad oran kartaa heerkeed waa la tartami kartaa بالقضية قروح إيا مأموس أكون مريميو أكون منستيقو قلو عمر وني من لغو لاري إيا ميسان عمال ما أهل مش لاقا حلين أحبل بالقضية قروح إيا مأموس أكون مريميو أكون منستيقو قلو عمر وني من لغو لاري إيا ميسان عمال ما أهل مش لاقا حلين محبة 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 صوماليا محبة محبة waxay ka qayb galeen shirar fara badan oo dalka dibaddiisa waxayna dib u garaaceen albaabadii caalamku ku dhawaad 30 sano ka xidhnaa Soomaaliya waxay inta badan shirarkaasi ku soo qaadayeen deyntii lagu lahaa Soomaaliya in laga cafiyo shirarkaasina guulayay ka soo hooyeen We very grateful for the World Economic Forum to organize these events because it gives us an opportunity to look into the world and to look Soomaaliya markani waxay heshay hogaamiyaal jecel wadankooda dadkooda kuna faana Soomaalinimadooda iyadoo markii ugu horeysay uu saxiixay madaxweyne Farmaajo xeerka musuqmaasuqa Mogadishu